inay waajibaad ay leeyihiin oo ay qabsadaan ay ahayd inay weliba ku sii dhiiradaan haddii ilaahay ka dhigo oo ay rumaystaan dee inay yihiin mas'uuliyiintii waddanka iyo xagga sharciga. Fikirkayga haddaan ka dhibto labadan doorasho isku sidkan baarlamaanku baasmarayeen anigu waxaan u arkaa sharci. Waa Saleebaan maanta waxaan ku leenahay dalka iyo dadka badbaadi. Ka qaatay in labada doorasho la saaro oo tii madaxtooyada la isku qabto tii ururada waa hambalyeynaya. Doorashada la isku sidko aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaana ku jirta badbaadada dalka taas oo aanu aragno inay badbaadada dalka ay tahay waxaan kale oo aan u sheegaynaa golaha gurtiga arrinka baarlamaanku si jaray uu magaranaysa hawsha uu dhameeyay in ay ku ansixiyaan isku sidkan baarlamaanku baasmarayeen anigu waxaan u arkaa sharci waxaan u arkaa khilaafkii muddada sanadka ee qiriga qirta ahayd inuu soo afjaray madaxweyne biixi waxaan leeyahay dee ma aha sharciga sidaa doonaysaan aad jeceshihiin dee ma noqonayso maalinta idigu leecdana dee ha odhanina waxbaa la taribiyo sharci darhaa dhacday maalinta idii hagaagsan tahayna ha odhanina waa sharci arrintaa baarlamaanku baasmarayeen waanu taageersanahay waanuna soo dhaweynaa golaha guurta waxaan leenahay war hawsha idinkuna isdhaafiya oo yaana ceeb idiga raacin oo madaxweynuhu isaga yidhi wixii baarlamaanku afkiisa laga haya wixii baarlamaanku ansixiyaan waa sharci dee sharcina oo tale baasmaree iyo bogaadin uga diraya inta garatay ee caqligeedu siiyey inay maanta dalkan iyo dadkan badbaadiyaan kuwii aanu doorannay waxaan cambaarayn u soo jeedinayaa kuwa la doortay ee dadka doortay ee maanta iyo maalintii u ordayey maanta kursigii markay gaadheen maanta doonaya inayna burburiyaan dagaal nagu bilaabaan ee maanta adduunyo eegay ee aan eegin ilaahay iyo aakhiro xaggiisa toonaan imraar dilacsan dalka la badbaadiyey iyo baarlamaanka labada qodob ee la isku hayo ansixiyeen waxaanu arkaa in maanta halkii dalku uu ka sii ciiriyay nimankaas ilaahay uu garansiiyey waxaan leeyahay hambalyo golaha guurtida in ay arrintaa ay isdhaafiyaan iyaguna oo aanu iyaga kii ugu weynaa iyo madaxii ugu sarreeyey golaha guurtida ninka weyn oo Soomaaliya ma joogo guurtii waa golihii ugu weynaa golaha guurtida waxaan leenahay Saleebaanow iyo inta kale golaha odayro ka hadlaya TV-ga wadarkayo wax iska leh oo golahana kamida waa ka ilaahay bilaadan toonaan oo dadkaas kala ugu badan waa Saleebaan maanta waxaan ku leenahay dalka iyo dadka badbaadi kasnimo ahayd inay waajibaad ay leeyihiin oo ay qabsadaan ay ahayd inay weliba ku sii dhiiradaan haddii ilaahay ka dhigo oo ay rumaystaan dee inay yihiin mas'uuliyiintii waddanka iyo xagga sharciga u qaabilsan waddanka cidda kalena dee wax inay tixgeliso madaxda kale inay tixgeliso guurtina waxaan leeyahay arrintaa waa inaad taageertaan waa in mas'uuliyadda qaadaan isku sidkan baarlamaanka iyo asxaabta maadaama dalka laga saarayo muranka siyaasadda muranka ka jira waa soo dhaweynayaa waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa oo waxaan Soomaaliland hore uga dhicina golaha wakiilada arrinta ay soo dhigeen mooshinka ay ku ansixiyeen in labada doorasho la saaro ka qaatay in labada doorasho la saaro oo tii madaxtooyada la isku qabto tii ururada waa hambalyeynaya waxaan leeyahay waa guul Soomaaliland oo soo hoytay mid macaafid soo hoytay iyo mid macaarid soo hoytay iyo guul Soomaaliland oo dhan la weeye ee ma aha mid macaarid gaar leeyahay intii aan sixisay ma inta kale waxaan leeyahay malaa waxa alowdeen walaalkay niman badan oo qaylinaya oo le mooshinka sharci ma waxaan leeyahay nimanka dhalinyarada war aakhiradiina iyo ifkiinaba u tur dadkiina u tur oo xishooda baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu sax ahaa ayna ku jirto badbaadada iyo qarannimada Soomaaliland in doorashooyinku say u soo kala horeeyaan loo kala hormariyo dalkuna aanu waqtigan u baahnayn muran siyaasadeed waxayna dalka muran siyaasadeed hagelin waqtigan uma jeedo sida ay go'aanka u fuliyeen baarlamaanku qaado sida sharciga ugu adkow waa golihii labaad ee iyana baas gareeyaan sharciga oo ay ansixiyaan si ay doorashaduna waqtigeedii waxay talaabada ay qaadeen waxay ku habboon tahay in ay maalin wada dhacdo labadaba anigu waxaanu leenahay waa ku mahadsan yihiin maalintii dhaweyd xubnihii baarlamaanka ahaa ee arrinkii uu ahaa danta iyo badbaadada Soomaaliland ee lagu xalinayay khilaafaadka dalka soo dhigay iyo guddidii ganacsatada ahayd ee ka horeysayba arrimihii ay soo dhigeen
aad iyo aad baanu arrinkaa u taageeraynaa haddaanu nahay reer Ceelaf Weyn. golaha guurtidana waxaan leeyahay dalka badbaadadiisu maanta gacantiina ku jira, dalka badbaadiya sharciguna sidaa ku taabagalo. doorashada la isku sidkay anigu khalad baan markaa ra'yigayga xildhibaanadu kusadeen waan markaa golahan waa furmaya waan ka soo horjeednaa in la isku sidko aqliga wax gali kara maaha. aad baan soo dhaweynaa in hal mar la wada qabto baarlamaankana aad baan ugu mahadnaqaynaa way culayskii siyaasadeed ee dalka ka taagnaa ayay ka fududeeyaan.